أنا ماركتي أو فيدباك نفسي في عن يبقى هذا كلام مستقبل جعل عمله سنة ماشي أو معنا كي ضد الإنجنيير المنطقة في اللي كان كجرا شقي وصعدان قبل الله عاود كرا وحياة باصل ما سكور سنة إن شاء الله سنة وربنا وحرجينا هذا اللي بدنا يحيي سنة كذا ربنا وحرجينا نكسب وطن مدام ده السلام عنا هاي سيد عادة أمريكي دكتور اسمي مدام محمد ونكسن إن عائلة قرآن كفرنا وحنا كسلوين إن ولكن إنجنيير أحمد إنه عائلة قرآن كنوفره كدبنا معنا كين أستاذ عبد الله مالين أيان ميكروفون كوري جدونا أو برنامج كانوا دافر دوره كدبنا وحنا وحي دورنا نيردا إنجنيير أن سو شقي واحد بدنا نلقى فائدة عاوش نوجو إن أنا هيك إن شاء الله برنامج كذا غير كسينو أدرى حق سلوين ولكن إنجنيير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنا المسيح ولكن أنا كان وحلنا قرآن كيسنا الله ركون فرعوا أنا كان كوعنا الله نجديه سيد عادي برنامج وسيقول جلنا مرة إن شاء الله وحن برنامج كفرنا سيد عادي عيدا قرآن كدب الأستاذ معلن عبد الله ومعلنك أنت نرضي أسوأ بيه مصدر كان كرجين إنه أنت نكسب إنه مدوسي غبطه معلنك وعلنا هذه السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مركز في حد وين إيتها عاو كلا سوني مهنو كل يوم حرجين دولا برامج كبروها برامج سنة بأنفضل حوجا هرب كان قد حاجة ما سمين إن شاء الله حرجين دولا هرب كانوا يسوون بدونين مركلا مدبنا وحال سويدينا برامج كانوا كل قبناي غير بدنا شيء ما جرت ويلي وبدنا قبل يوم حكوا على الله عاو حرجين دولا قبل أن نرجع قبل يوم بدنا نرجع أيتي كشقيان مركا ولا بدنا قارن نبغى أنا ويجوجان هل كان بيلاش ضفريا maaragtay waxaan rajayn doonaa caawa inaan ka faa'iidaysano kulankaan kale wax kale ma u sameyno waxaan kaliya u sameynaa inaan isbarano aan kala faa'iidaysano meesha maanta teknolojiyada ee maraysan aan ka hadalno fursada shaqadaha meesha jira inaan ka sheekaysano sidoo kale inta badan sanadka waqtigaan dowlad la gaaro murugo weyn waxaa noo ah imtixaanada GCSE-ga ee levelkii ah xoogaa waalidkeedii jabaya marka waxaan isleenahay ma jirtaa meel kale oo la aadi karaayo haddii dabcan imtixaanadii aan dhibco fiican ku keenin marka waxaan rabnaa xasuusina waalidiinta oo dhan in imtixaankaas kaliya uu qiimeyn karin ardayga balse lagu qiimeyn karo ardayga waxyaabo kale oo ka duwan laakiin haddii mataqaanaa fiiri sanadkan waxaan soo baranay waxaan qaban karo dabcan inay ka duwan tahay marka sida macnaha aan ognahay marka IT-ga waa fursadaha aad u fiican maanta adduunka jiro waxbarashadiisa aad u fududahay anigoo dadaan duqata ku shaqeyn karaayo waxaan rajayn doonaa ardayda yarka inay ku shaqeyn doonaan insha allahu tacaala marka waqti badan kasii qaadi doono waqti dambaan joognaa insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa waxaan u mahadcelinayaa walaalkay injineerka JR oo maaragtay aad iyo noogu gacan qabtaa barnaamijka noo daadiyo inaan walaalahayna kala qiimaha lacagaha meesha joogo inaan ayagana mataqaanaa la sheekaysano ee aan ka hadalno journeygan IT-ga intuu kasoo bilaaday xaggeen joognaa maanta macnaha intentionkeenu yahay intee u soconnaa insha allahu tacaala jase wax dhiirigelin kariya qof kasta marka ereygaas uu dhaho waxaa laga yaabaa qof walaala inuu ku arko uu adiga kugu dhiirado waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala inaa caawa rol badan noqon doontaan oo maaragtay odayaasha caawa la cafin doona insha allahu tacaala muudey waa jooga cumar gacan saciid yaragay meesha jooga ayaga xataa insha allahu tacaala kulley markii barnaamijka waxaa imaan doonto waqti oo maaragtay aan nasan doono oo isdhexgeli doono insha allah su-aalahaan qabnaan isweydiin doono aan sheekaysan doono aniga waxaan ahay shaksiyan dadkii macalinka markuu waddankan bilaabayay wax la soo bilaabay inkastoo aanan meelo badan uga shaqaynin
laakiin haddana dadka mar walba la socdo in la horumariyo waxbarashada dhalinyarada in la dhiso generationka yaryar ilaa dadka jaamacadaha xataa ay markaas adult education waddanka ku yimid oo jaamacado fiican ay helin oo kale xataa in laga caawiyo waxyaaba badan. Asalaamu calaykum, magacay Faisal waaye, haddana waxaan ku shaqeeyaa firewall engineer. Ma rabo inaan waqtigaan soo bilaabo IT, so it's a long time. So odayaasha ku jira hadda, so hadda waxaan rabaa just one advice inaan siiyo mataqaan haddii qof u jiro mataqaan oo IT shaqo aan haysan waxba aan haysan mataqaan IT I would say is probably one of the easiest things to do. So that is mataqaan cousins, you know, brothers, waxaas mataqaan aan waxba sameynaynin, they're not doing anything, mataqaan encourage them to do IT, to come here to Maltec, mataqaan also get in touch with one of the people here, mataqaan we will help. Yeah, that's what I would say, inshallah. I'll pass on to Mr. Yahya. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وان سلام يا مرت شركة سكوتي العاوة. الحفلة دي سنة هاي سنة دول بيسكول كمالت بنوقع بنشري. روتيات بنوقع فرح سنة هاي أنا كسوق غيب قلا حفلة دي. مرة كسوق غيب قلنا وراح نقول معهم دنيا السوق دنيا تدهالس تظهر مرة هذه marka farxad bay tahay kasoo qayb galo marka labaadna waxa qasab igu tahay kasoo qayb galo macalinkeenu waa macalin mar walba naag taagnaa mar walba garabtay maanta inta ka joogta inta shaqeynaysa waa macalinkii maanta u sababay inay wada shaqeeyaan ay shaqo tagaan sida uu fashion sheegay kulli dada la garaya malaha ma sheegay sanadkii la bilaabay mar hore ayaanu macalinka waa aad ugu horeeyay waa malaha nahay ka kala jabiyay iskuulka macalinka ما شاء الله كتب سدا شغال كنت هي أنا بروح أكون جرا VMware خيط هذا كلام virtualization رنتي ده محط أنا تلاقي سبيس مع عبد الله ماسكة مرة بقول جرب تعلمنا هاي مع عبد الله بقول شعلي أردين إني مرة بقى يمادان أي كتب أي عاويان أردين عصب سي أي أردين عصب شغلت كان سو بحكي لي تعمل هذا اللي بحور هذا اللي أردين المشغلات أردين عصبين تحصلوا واحد حلولي جمع رنتي سيدا درتين بانو كنت دالنا مركو معاهم مهم هذا ميرو رجلنا نبعضنا إنجنيريدي عصلابها هكذا مفعلية ما تكون في وضع كروسوفر استعمل عليه هاي محمد وكله سو نيروبي شغايو وهاوش الوصل قيب قال درتين وتكيد كهرباء صوريكتي كان معنا كذا صح حدث سلوجي عليه هاي سكول كنات بانو فرح سنة والمركز يو أعتقد كسب حدي لما نحل دالنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I knew Man Abdullahi for a very long time. For many years, we used to walk past each other. I was on my way to school, quite young. I didn't quite know he was a technical professional until years after, a good friend of mine introduced me to his school and said to me, I think I was in the final year of university, really confused, didn't know what to do, and he said, look, let's go into IT. The year before that, he'd gone to India, Somali guy. He went to India to go and study IT, so I was quite bamboozled, I was quite confused. And he took me to Shepherd's Bush into this room, and lo and behold, Ma'alim pops up. The same guy I've been walking past for about 10 years, and you know, alhamdulillah, we're quite happy to see each other. But alhamdulillah, after he introduced me, I was quite happy to start the course with him, so I went into studying CompTIA A+. This is going off of back of a degree in business management, so I was quite confused at the time. Alhamdulillah, once we finished CompTIA A+ and N+, so we learned about the basics of a computer, what's in the computer, the components of a computer, you know, the networking, how a computer communicates with another computer, and there was a group of about 3 or 4 of us studying at the time. I applied to many jobs. I was able to sort of work my way around it and manage to land the job, so that was my first tech role. So I was in the NHS for about a year or so, doing IT support. After a little while, I decided I'd like to go into maybe a branch off of tech, so I wanted to go into DevOps, and that's like a buzzword at the moment. Everyone's talking about DevOps. How do you get into DevOps? And after a while, I learned about the different technologies that it takes to get into DevOps: Linux, Kubernetes, AWS, and I started my journey that way. So alhamdulillah, I was obviously by the fadl of Allah, of course, and after Allah, Ma'alinka, of course, for his encouragement and his kind words and the networking, he put me through to some of the engineers like Moody, Lama Barik, sitting there. And alhamdulillah, after a little while, I started going into the studies like AWS,
And AWS, for anyone who's touched base of the cloud before, you'd know that there's a lot of virtual sort of abstractions of the technologies and the components of it, and I would never have understood it if I didn't know the hardware equivalent. So for example, if we're talking about VPCs, we know about the networking, the Ethernet cables, but alhamdulillah, because of learning the hardware with Ma'al Abdullahi, I was able to obviously understand that the abstracted components of the computer, which was very helpful, alhamdulillah. So after a little while, alhamdulillah, I managed to land a role and then moved over to Sony, and currently I work at this consultancy where every day is a different tool, different technology. At the moment I'm learning Python, which I haven't really touched base with in depth before, as I did with Kubernetes and some of the other technologies. But alhamdulillah, I'd like to thank Ma'alin and obviously the peers around as well. To anyone who's looking to get into tech, inshallah, obviously first have faith in Allah, make sure you make your du'as, and then after seek the advice of those who have tread the path before you. So there's brothers who've done it before you, who've struggled before you, so make sure inshallah ta'ala, you in that kisatan and du'asatan, and inshallah you definitely turn out to Ma'alin's lessons, learning, he's currently teaching Azure, he's going to put you through to the relevant people, inshallah ta'ala, that will help you not just in the technical element, but also in the element of CV structure, interview, and how to tackle those those difficult discussions, of those uncomfortable discussions of obviously landing a role. So yeah, it comes with challenges, but of course, as any engineer in previous will ever tell you, after difficulty comes ease. As the brother recited the ayah, Allahumma barik, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah doesn't burden us more than it can bear. So inshallah ta'ala, strive and prosper. So make a lot of dua. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dhalinyarada tirada badan leh oo kasoo aflahay Maltech oo ah engineering department. Aniga professionally waxaan kasoo bilaabay software engineer, idinkaa ka mid ahaan jiray. Hadda waxaan u gudbay academic iyo research industry. waxaan ka shaqeeyaa hadda waxa ugu badan 7G sidii loo soo saari lahaa, 5G aa taqaanin idinka, machine learning algorithms, artificial intelligence sidii loo horumarin lahaa. researchkayga ugu badan waxa waay sidii computing loogu dabaqi lahaa medical care. Marka aad ugu faraxsanahay inaad joogtaan oo dad badan oo soo saaray Maltech, laakiin halka advice ku dari lahaa meelaha academic ah Soomaalida oo ku yartahay. Marka waxaan rabaa dadka most ka mid ah inay ku fikiraan inay noqdaan professorial advisors wadankan. cilmiga iyo caqliga meesha laga soo saaro jaamacadaha waay. hadda 5G aa laga gabnaa, laboratory waxaa yaala 7G, 6 meel unuu yaalaa already. sidii 7G loo sameyn lahaa baaritaankeeda socdaa. Marka waxaan rabaa inaad meesha kasoo qayb gashaan. waxaa jira fursado badan oo funded master's courses, funded PhD courses oo available in dadka dhalinyarada. marka jaamacadaha in lala xiriiro jobs.uk.com waa ka buuxaan haddaa ka fiirisiin applicationada oo fundedka ah. inta aan dhiganayso lacagaa lagu siinaa, markaa soo baxdani oo dabcan oo kasii fiican tahay. marka dadka dhalinyaro fursad badan ay haysataan. anaga markaa imaanaynin, anagoo soo qaxnaa nimid orodka ku socno, markaan gagabnay ka baxayo soo dhawaan. jaaniska ay haysataan qof haysato male. waxaan ku dhiirigelinaa marka yaana lagu ekaanin technical work, meesha ugu koraysaa la rabaa inuu tago. marka waxaa ka rajeynaa apply inuu noo sameeyo online meetings badan, baahidiina wiciino si aan courses ku habboon hadii lagu diyaariyo insha Allah. marka apply mas-uulka intaas inuu abaabno waa dadaalina insha Allah. أنا ما سمتي أحبطه شيء من ويعد شيء لا يذكره وراء صوت هذين أبدا أكبر شيء. magacaygu waa Tuqaadir, waxaa ku jira ardaydii bilowday 2019 ana waxaan ahay hardware engineer oo waxaan
waxaan bedelnaa kaamirooyinka iyo geedadka iyo soo hadda ku daalo marka waa mahadsantihiin insha allah. جعله وحاكم القفل اللي الصومالي ما نتوقع شغالها أولو سبب جعلها قف كلا الصومالي متقارن وكل اللي قال مش نتوقع وبرامج في عندنا شغال لو تعاو فرحة وين وحقيقة لا يقولوا قبل يا مش فبيان قبل لي لا شغال شيء مركب أيضا شغال سنة يسوق قبل كلا شغال أبلا كريسي مركب وحنا هاي هبلايو ومتقارنة قبل هذا صفا على مرلوش قبل هذا مركب هو حراية لحظة التلفون كذا سي وصل شكل قبلين مركب إلى المحوق قدري يعني والله شكل انترفيو اللي هذا وحلبه إن قبل أنا كل شغلي أبلاغينيس إن دمعة نقطة سام شغل كبري شغلينيس مركا تابع كوسينا سا هدا أنا جسارو كل شغلتي سنين أو شيء كسرين فرصة بدل ما كيف هذه السنة كلام مركا وحنا فرع سنة قبل راس شلوين ويا دمعة وليش حتى كسي في عيني إن شاء الله على جندنا ما ينفع لقاردنا مو دين وحبا أو دمعة يونيك وكيا وحاكم المركز وشغل كبلاد وجعل هذا وكانوا أصحاب تيسا هذا ميل قاس وجوجا معلومات المجين مركا على جندنا عاود الويدين دور الملكي إن شاء الله سوي استعمل وعلي سلام دمان إن شاء الله وحنكون فرح سنة مالته إن كسوق قبله مالتك تكنولوجيز مركا ضد وحافظي وخيار بدن ما شاء الله دنيرو مالته تكنولوجي قاد إن وحبدن سوق قبتي إن يا على كورتو عن لنا هاي وحبدن دلال بدن أصول سمي وعد معناها دلال إن كوبحي بسي دنيرو وحبرتان مركا ورتا technology IT is the best technology these days in معناها لنعيادة أو career changing dadka soo sameynaya dadka raba inay wax bartaan shaqooyinka waxaa badanaa nala joogo dad macnaha kasoo different graduates macnaha field kasoo bixi like accountancy maxaa la dhihi jiray pharmacy, medical section, still they transition into IT. Marka waxaan leeyahay fursadaha laga faa'iideysto technology-da if you come into technology side of IT, always you're not gonna go wrong dhalinyarada especially hadda kasoo baxaysa A-levels ama jaamacadaha hadda galay macalinka waxaa waay always is encouraging new technology oo hadda soo socda sida cloud technologies and artificial intelligence waxaan u maleynayaa qof kasta oo hadda inta joogo inuu la socdo ChatGPT marka hadda IT-da waaba sii fududaanaysaa ChatGPT haddaad taqaanid waxaa waay if you want to code you ask ChatGPT how to code you take your code your phone ninkaana ku sheegay DevOps engineers marka waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in foundation-ka uu dhisan yahay marka IT galayso marka macalinka dhinaca CompTIA A+, Network Plus and Security Plus koorsooyinkan inta ku wada jira Cisco, CCNA, CCMP waxyaalo if you do the basics inta kale adiga isbari karo insha Allah macnaha course by course you can pick Microsoft certification technologies these days idan naftarkeeda aad waxyaalaha oo shaqooyinka hadda hadaa fiirsiin dhinaca cloud computing Azure for example technologies in aad loogu baahan yahay demand jiro dhinaca kale oo demand ka jiro waxaa waaye cyber security technologies as well or especially in the cloud marka projectyada badan oo aan aragno hadda dhinaca shaqooyinka waxyaalaha ugu badan waxaa waaye cloud technologies cyber security macalinka marka waxaa ugu dadaalo anigana meesha waxaa ugu muhiimsan in dadka dhalinyarada hor u soo shaqeeya ama hadda inta kasoo baxay oo shaqooyinka ku jiro waxaan ku dadaalnaa in networking la sameeyo dadka shaqooyinka oo hadda shaqeeya badanaa shaqooyinka hadday soo baxaan in la isku sheego shaqada haddii opportunity ay jiraan in oo lis encourage gareeyo interview macnaha skills marka insha Allah waan soo joognaa wixii help we are here to help insha Allah. Thank you very much. أهلا وسهلا مودي ما شاء الله هذا فرح سنة مودي مركز معاون نص قبله runtii qof kasta oo caawa meesha imaado ka madacilaa waqti qaaliga ah soo horteen waa rajayn doono qof kasta waxa uu yiraahdo ay ka soo qayb galay ku sheegi doono in ajir u keeni doono insha Allah taala marna ku sii dheeraano halkii xundura u yeelana insha Allah soo insha Allah Abdullah sallallahu insha Allah
geeska filo ku xidhan ma sii Well, I know when I'm not a public speaker, to be honest. And I just want to tell you one thing. And I wasn't Kukurusu. And I did my IT in Kenya. And I was just struggling in how I should have CV and presenting in a good way. I remember like 2 weeks I grew to marry. And that week I already got a job at the UCL Australia. There's nothing else I can say. Anyone or how, how I reference and everything. One guy inshallah ta'ala. Because hadil as'awi, mbamil wa likarika inshallah ta'ala. Assalamu alaikum. 2 weeks of فرع أو قصة لقطة هذي الأمر ما كان 2 weeks شقة كويلة خوف كبري ما ذكرها 2 weeks شقة كويلة والله خطرنا قليلا إن شاء الله هذا بدنا مركيت وضعيتنا معنا محارة كورسي لو كورسان ربع وشغل الويلة على جد كورسي وحبري إنت إن شاء الله تعالى لكن كفر عسى الله كور شغل الويلة بروت مركو غفر لي رأى شقيها الآن وفرحة مركي كبر عشان وقتي كرنتها حقيقة بس قبلها يونيك إنه يقولي هنا تقال الله أنتو المجري لها أنا قلت له مركا رأي بدنا جود هالكن معناته أيضا داعي معنا آية شق بلابين قبل يقول معناها مركو حرجين دون إن نقطة مالك الغب بلابين وشيء جاي بحكي مدة وشيء جاي ساق وكلته إن أكاديميك حتى هذا أكاديميك واحد يقول غير عراي بعته واقع من الآخرين هاي هو العادة هاي كذا ما هو أكاديمي لكن أصلا نقول شيء كذا العقاد إن شاء الله يسافر دولا العبارة إن شاء الله مركو حرا أنا من وراكي تتقال أو آباء ولد ما فعلت ماشان وراكي صديق ولا تنسى إن شاء الله عن صوت القيادة gabadha ida soo maxan ku sheegay hadda dadka meesha fadhiya kamida runtii sababta aan u weeriyay macalinka sababta ugu yar maaqan hadda aniga ayta kuma shaqeeyo of course waan ku shaqeeya laakiin basic IT waxaan ku aqaan business oo repair computerada iyo telefonada iyo waxaas dabcan waqti dheer aan kusoo jiray IT-ga sida dad badan hadda meesha ka sheegaan waa fursad haddana waxaa malaysaa Soomaalida aad inay usoo jeediyaan dhalinyarada Soomaalida ah hadda IT aad uga dhex muuqda masha Allah in la wado marka sidaan kala kulmadan kaan la qabto la isku dhiirigeliyo dhalinyarada isbartaan telefonada kala qaataan interview tips iska caawiyaan waa muhiim oo la badiyo kulmada noocan oo kale ah waa maasantiin anigu de waxaan bilaabay IT hadda 10 sano ka hor marka sideed jir ahaa baan bilaabay second year kii baan u imaaday macalinka Maltec wuxuu ku ahaa sama kiilo alxamdulillah marka hadda a lot of companies baan kasoo shaqeeyay and waxaan la kulmay Yaxya iyo group fara badan oo de aan isla dhiganeen marka anigu waxaan dhahay lahaa dhalinyarta inay group samaystaan inay isla dhigtaan because waa challenge garayn kartaan ma garateen and waxa fiican de inaad baratiin the latest technologies and haddaan group ku jirtiin in a group marka waxaa sameynaysaan a lot of practice inaka waxaan samayn jirneen labs ma garataa every weekend baan tegi jirneen someplace and ku dhigan jirneen ourselves so marka shaqada tagnaa Monday to Friday we have conference waxaan sameynaa ma garatay so anu waxaan dhahay laas isla barta and groups la noqda marka meel fog baan tegaysan insha Allah Someone should start off with if they're coming to IT first time. Okay, first time the Sudu Saeed already wax fiican la barto the foundation of IT so the hardware is the main thing everywhere like even in cloud at the end of the day waxay tahay hardware isticmaalayo oo meel kale la dhigay so components going up in a team one by one so we don't have to have either network components or computer hardware components magacaygu waa Naciimo aad iyo aad u faraxsanahay intaan oo youth oo maanta hor fadhiyo Maxamed Cabdullaahi waxaan la jazakumullahu khayran waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo youth waxaa tir group samaysta in adigu samayso ko saasha sida kula tahay labo salary-gaaga nooma sheegin saddex
mar walbana ku sugaynaa tiimkooga kale aada kaaga mahadcelinaa. So every year it's going to change, you know, depending on what type of job you're going to do. So I can't guarantee what it is today, and next year it might be even more. So what's that kind of basically? So what was the other question? Youth, in terms of the color digging, is it? You guys need to actually stick together. I think at the year nearly since 2014 until today. We work on the same technologies and we study together and we keep in touch, you know, because that kala shaqeynay sidii iyaga waxa kuma sheegayaan, they are competitors, so dadka Soomaalida iskula xirta insha Allah. So I'll say. Was that any question? بسم الله الرحمن الرحيم. runtii Xamse waxaan ku darin dadaalku Xamse sameeyay waa dadaal ah in ardayda dhalinyarada ku daydaan. Xamse isagoo yar ku noo yimid markuu nala bilaabay anagu laab baan lahayn data center subaxii intaan nimaadno ayaan ka bixi jirnay ilaa 5 meelaha. Xamse halka kuma joogi jirin data centerkii aan samaysanay mid la mid guri ku samaystay. markaas halkii guri ku tago ayuu sii wadaa. subaxii ku soo noqday isagoo anaga ma naga sii fresh oo chapter kan soconi baa laga horeeyaba. marka dadaalkaas oo kale waa dadaalka horumarka lagu gaaro. Xamse runtii horumarku wuxuu ku gaaray waa dadaalkaas uu dadaalay. arday walna waxaan oran lahaa sida Xamse si ka badan baa uu dadaasho horumar waa gaaraysaa. marka Xamse roo model bi noo yahay taa la socda. تعرف شو حاول أنا كنت ريحة وأتكلم كلها رنتي ضدنا هبينا هم حلو سان وكلتا سان ما هين سكول كي تبغى جمعة كسر ولا شيء ما جري ولا شيء كيس جري ولا سلع شيء جري عم بولا دون جري ما نحن أوكي مركا وحد على ورد جاي ساي ما ده شيء كيس أنا أتسحب هو هين مركا مدو مارته مالك شقينا شقو رادينا مركا عاونا مركا بيت وحول عاو أساس مو إيمان محاط ما عاو مركا أقول رئيس حمزة صارنا واي أوكي هذا عاد اللي حبلو تلفون كي عاونا هذا الإكسبرت أكون فيلد جالس فيلد جالس كشغية هذا القدر كشغية ما شاء الله مركا وكفر عسل إن أساس كنت تسكو عاون كان أيقولوا ساكين تلفون late in the night معنا غفل وعاوي ورمر في عنا بقارة مركا أنتي سو يحيي شيء وكل دائرته كجرا رول ويا هاي هذيك إن شاء الله تعالى جد ولا سيد أدفايس كيس إن اللي ربنا عاوننا تاني إن شاء الله تعالى دولة وكفر عسل حمزة هاتوا هذا مركلة إن شاء الله تعالى مرة ولا إيمان إن شاء الله رد كل تاع حتى على كجرا اللي خبرت مع الله سمي ما دام السفر غير وصل قال بدو يحتكي هذا أثنين بريء بحيث حمزة بريت بعد أن يكون إن شاء الله ما حصل حمزة أنا مش هذا والغير بدون كل إن شاء الله تعالى بس سؤال بيجون إن شاء الله وبرافو إن شاء الله ما استنى دور مرة معنا سني يحكي محمد وراح كافر هذا أنت بدنا نريد أسمين فيصل باقي عبد الحيس حقه جوجو متقانا ومر بحس كده لا أسميان وحلا برا له فائدة إن شاء الله تعالى وحرب أن مركان إن شاء الله تعالى ولكن عمر قعدنا نقصد إن شاء الله waxaa kaliya ku darsan lahay wax badan waxa la sheegay muhiim waay mid kaliya aan ku sii dari lahay in anaga is aqoonsan ko marka inta fadhida meeqa IT ku shaqeysa reason ka gacantina taagtina waa reason ka u taagay waxa waa dadka IT ga raba inay galaan inay noo imaadaan qofkan kaan anaga so mid kale Hamza iyo pointing kale laga hadlay ugu muhiimsan oo IT ga dhan oo wax tarka u leh oo lagu bar kalena waxa waaye aan isleeyahay aniga you need to have a group or encouragement as ku sameysaan I mean IT ga intaan ku jiray xogaa badan tahay and dadka successful ka ah waxaan u arkaa siba India wala shay oo ku sheegay the only reason it's successful we him their networking code is unbelievable networking code aad u fiican yahay I'll give you one example. And Maran joogay overseas golf ka shaqeynay. Dadka badan aan la shaqeeyay maalin walba iga soo baxay IT ku jiro waa Indian. And very dadka kuma jiro runta hadii loo hadlo. So markaan la shaqeynay waxaan ka dareemay wax walba awarsato aad tiraahdo do you have any idea what that is? The only answer uu ku siinayo waxay tahay let me find out. So I get this Google everyone okay problem with the you all go in Google right you can ask questions so these guys we have to in or Google see that telephone of right
bahal adoo telefoon qof saddex ugu jira waxa isleedahay yuu la hadlayaa already wuxuu la hadlayaa qof oo networkiisa ku jiro within an hour or two solution ku keenaya so just imagine that guys Google mu baahan they're one step ahead of us. Google had their own banner. Even ChatGPT, I don't think they're behind because they have their own ChatGPT. Yeah, but here, Somali in an observation had done as an individual had done very successful. So as an individual, while the area, كلنا وقردنا effort كوالجيلنا as an individual hormon yeah, we're all going to be like this individual هذا مشاكلنا. Yeah, Somali حكومة بهذا فكرية hormon. So هدي صار but you know I think حملنا we're on successful path. And هذا أسكوي معنا وهذا الشيء كيسنا tips and سينا. Yeah, not only knowledge كلي واحد مهمة. Funny enough, IT is really good field. Like the most successful IT people I've seen, they don't have any technology knowledge. I'm telling you. Most of the people IT kujiro, they're not technology savvy but they're really good communicators. You see that which means how they're very good communicators. Any project in IT at that example for you don't see a lot of IT project managers. Because as a man technology like in see shaqada local wado see communication close mayo see coordination close mayo yeah all those skills are the most important things that a company will be successful then those kind of skills net IT right project managers most of them so let's get together some of like our hadalno asku imano let's share ideas yeah inshallah. To be honest, I didn't like IT in school. I met Abdullah, then I had to like it. To be honest, I did a degree in oil and gas management because my mom forced me. So I got tired. I was like, I'm tired of this, man. It's not working out. Finished the degree. I went to Abdullah, one of my friends, Mohammed. We got the same name, Mohammed, by the way. So went to the classes for Abdullah. He did it for a couple of months. I was like, it's not for me again, but I like Abdullah. So I sticked around with the guys. They gave me a connection to the NHS, but it wasn't good. I learned the hardware components like Hamza mentioned. Then I landed an international company. Then now I'm a field engineer across the UK, travel around. So my background is more entrepreneurship. I had no interest in IT, but I realized as a Somali, we're just good at it. I don't know why. But yeah, I encourage all young guys, get on with it, keep the connection network. Actually, I didn't have a team, like Hamza was saying, like to follow, like group. That's one thing that I could improve, which I've learned now that I need to build a network of guys, girls now, yeah. So yeah, I'll just encourage everyone, work together, get there, stick with Abdullahi, and inshallah you will succeed. And the results with Allah. I think the only thing that came to mind is 2015 is when I found Maaninka. And one of the biggest things Maltech has done for me is my first IT job. I was thrown in the deep end, something that I was not experienced at Bulahem. And the only reason I survived is 10 p.m. I used to call Maaninka while stuck somewhere in England in the data center and give remote control. We fixed this. And over the years, alhamdulillah, those calls came less and less and less. And I gained confidence. Like the biggest factor is, as the brother said, is the networking. At the same time, while you're in the industry, while so you take bigger challenges, and then there's experts in those challenges sitting in these rooms that you can ask to work you through it. And with that, inshallah, the company is going to trust you more. I think you're going to gain confidence in your field. The only other point I was going to point out is 2015, when Maaninka took me on. I remember I had nothing, and Maaninka was just like, come to the class. Just come to the class,
And alhamdulillah, 10 years later now, almost 10 years later now, I've been in the same industry, job to job, but I'm still network engineer. So, jazakallah khair. I don't have anything else to السلام عليكم وعليكم السلام. عاورت والله فرحة وين يتهاي ما دام مدورتي أنا ساكن. I think كوفر كيتو السعودي workshop بذا إن بدنا نتعامل مع ناس سكول من هدي جتني فيديو ناس على زوم ما كارتا جوني عاول جود هلا نمر بحاول أنا وكور وريق السنة تصور جراي إنه شيء ما كان أنا قلت لبعض يكون ما قارنا وحصل جراي سدح توك 2018 واحد يا 95 كذا واحد كل يوم مرة مرة حصلت عنيا أو IT تنعكس ويا ربطي أو كمبيوتر نتورك ديجري سويسري أي واحد صار عبد الله كاس عبد الله واحد جاري كروسن سوارك السنة عبروا معنا حرام بالIT نان كورسوي كابرت عليت marka straight forward really how many certifications you done A plus network plus MCSA جبت مركز and MCITB 2008 يعني straight really مركز you don't need no more certification what's lacking is just experience and وقتياس runtii ما ورينا قف honestيga ما عرفتي تدخل إسكي جعلي حتى الدكان هذا حتى الدكان كله قفنا أودرت مجرد عبد الله يقول you don't need certification markii wuxuu yiri CV ga ii soo dir I'm so glad that day maaragtay عبد الله جاني كروس xasuusta macna waxaan ku yiri marka work experience aan ku geenay marka waxaan ku yiri macna how is it possible 5 days aan shaqeeyay oofant waqtigaasna u barashadna lix saacadood iska shaqeeyay 10 hour u dhigmo waqtigaas ayuu don't worry adiga just go there waa tagay 3 bil ayaan ka shaqeynay Jari Cross just to shadow and learn IT dedication intaas like marka 3 bil gudaheeda macalinka la hadlo wuxuu yiri this guy will like him when give him a contract or first time markaas aan shaqeeyay marka from 2018 3 sano meesha iska fadhiyo contract-iga dhamaaday oo shaqadii hadana iga dhamaatay baxay oo Hargeysa iska tagay hooyo u tagay ayaan xasuustaa Cabdullaahi Yaxya iga soo hadlay wuxuu yiri your contract waa la renew gareynaya soo noqo ma fahad ana xasida exit qaadatay IT 3 sano nasiiba ku wareegtay marka saan soo noqday Cabdullaahi wala shaqeeyay another 5 years Cabdullaahi maxamed yara joogo marka Soomaalida muhiimka tahay ma fahad ayaa meeshaas ma aragtay aan ka arkay marka annagana wadadii raacnay anagoo group markaas waxaan ku fikirnay oo xasuustaa aniga Yaxya iyo Hamza iyo Faisal iyo team kale hadda qaar Dubai joogo worldwide jooga we created a team V class virtualization marka Cabdullaahi erigaas marka V class noo yeeri jiray anagana waxaan jirnay macna ardayda manigada marka anyway waxaan socdo marka waxay tahay meesha aniga kuma ekaan aniga technical support iska joogo second line third line iska joogo ayaa dhalinyartiga horeysay VMware iyo ku shaqeynay anagoo marka data center leh ayaa waxa dhacday in teamka Yaxya ilaahay ma aragtay kamid ah hadda joogo wuxuu ka soo baxay virtualization soo galay marka as a team in muhiim waa ma aragtay la saawiyo Umar Gacala joogo ana waxaan dhigaa hadda 4 to 5 different role ahaan IT waa apply gareyn kara and the reason is conference-iga iyo teamka oo ma aragtay groupka aan ka helay NHS ana joogo Umar Gacal SCCM Microsoft expert every area that's ma garanayeen any question I ask Umar aan weydiin jiray ilaa khayraasi to the point ee gaaran dadka teamka ma aragtay oo Microsoft soo dirtay inay yiraahdo we want this guy to come to this project I don't know background marka waxaan sheegay muhiim waa in qofka kale Soomaali walaalihii isku xirnaadaan team noqdaan marka hakiin guys don't give up meesha waxa joogo maanta Cabdullaahi oo runtii anaga IT markaan galin qof aan tilmaamsan ma haysan qofan maanta Cabdullaahi oo waxaan garanay aniga Kenya hadda maalin markaan tagay nina ayuu yiri workshop ka arkay oo 10 sano ka hor marka Cabdullaahi maanta distance learning meel walba maanta adduunka maanta not only maanta kuma UK Somali everywhere dad ka soo barto opportunity aan haysan dad aan haysan marka waxaan u socdaa inaan iraahdo ma aragtay guys isku duubnaada
I think maaragtay dad badan oo meeshan waxaa joogo expertise runtii get their contacts maaragtay questions weydiiya muhiimadda like waxay tahay lagu celceliya put together a team anything you want you guys you can be haddaan noqotay club we have club engineer haddaan noqotay DevOps we have Dev engineer haddaan rabtid inaad noqotid SSCM engineer you can be networking anything automation أنا سعيد مقرنين لكن مقعي صحيح تعرف ذو كتغي وحلو يريدين وحوا توب باش وصل هذا جار هاي سي نو هذا مركا تيم سكوب بالماضي مركا هذا لسه انا روحي questions guys. Assalamu alaikum first of all. Yeah, so my name is Abdullahi. I'm very new to IT, you know, compared to like all these other guys that were just talking, saying they've been working here for like a decade. But you know, I've been here for about a year, so I might be able to relate more to, you know, all the new people here. It's all the work you put in. So now you've got all three of us, all three Somalis come from Malta. Yeah, so communication is very important. Like he was saying earlier, it's very important. Yeah, when people call in with a problem, they just want somebody they can talk to who can fix their problem. Yeah, that's all I've got to say. Thank you very much. I would like to say first and foremost, Alhamdulillah, and thank Allah subhanahu wa ta'ala. After that, I would like to thank Ma'alin Abdullahi for everything that he's done. Alhamdulillah, I started with Ma'alin Abdullahi last year and I got a job in February 2023. Alhamdulillah, first line support engineer. When I've been working, I've seen that the most important courses are A+ and M+ is very, very, very important. And I'll tell every Somali engineer, IT engineer, to come to Maltech or work with Ma'alin. Saeed was my neighbor. He went to uni with my brother. They had a team. I had gathered people who went ahead of me. So Alhamdulillah, they helped me a lot. I was able to get a job in 2 weeks. Alhamdulillah, finishing both those qualifications. And I would like to say again, Alhamdulillah, thank Allah subhanahu wa ta'ala, thank Hoyo, who helped me a lot, who even paid for this. I would like to thank my brother Engineer Yusuf. I would like to thank my brother Engineer Yusuf, who's also a student, Ma'alin student. I would like to thank Saeed, who's also a Ma'alin student. Ali, who's also a Ma'alin student. Mehdi, who's also an engineer, IT engineer. Hamza, who came up earlier, who's an engineer, who's Ma'alin student. I would like to thank all the pointy kale aan weyn waxaa waaye apprenticeship. Hadda kabari oo shaqeeya qof baan u imaaday, she's I think about 45 meelahaas oo kale. IT management, no background, not in IT. So firewall engineer waxay joogtaa meesha ka shaqeynaya 5, 10, 15 years ka shaqeynaya. So waxaa career change ay samaynaysaa. Marka so it's not just dadkii da'da kaliya. So how I did keep the way they got that and they want to change it. Shall I say donating? Yes, we can. You know, look for the jobs. Come to Maltech. You know, give you tips. See, should go into apprenticeship. What house or you can. You can find another job. I do to that. You can find it. That's one thing I would add. So I'm not just young people. odayaasha ka wajirka bismillah runtii habeenaada qurux badan bay ahayd si fiican waxaa weynay waxaan ka nagu darayaa macalinka in markii hore oo ima jirnay ardayda waxaan u jirnay xataa infrastructure labkan lahayn anagu beriga waxaan dhisnay laba aad u weyn wax data center aan dhignay laba data center bay yaaleen markii qayladii electric u taag weynay data center aan dhignay ardayda waxaan siin jirnay fursad ay ku tababartaan ay ku sameeyaan from scratch ay sameeyaan ay sameeyaan runtii taas aad baa arday badan u caawisay horumar badan ku gaadheen kadib covidkii markuu soo galay waa la yar kala shakiyey marka inta badan waan iman karin meesha Cabdullaahi ardayda maan caawin laakiin hadda waxaan bilaabnay inaan soo noqono waan dib u caawinaa ardayda insha Allah. Assalamu alaikum. I just wanted to quickly clarify a few things as well, inshallah. There was a few points about a degree. So if a person's done a degree, then it's not binnable. If you're looking to, inshallah, gain a role somewhere in the Gulf, Hamza and some of the other brothers will tell you that part and parcel of the visa having to be able to even get out there, you need a degree as a prerequisite. So whether you did pharmaceutical
or some, you know, healthcare degree or health and social care for that matter, it's not something that's completely, you know, disregarded. It's most definitely very valued. So, you know, reach out to your network and create your network, which is most important. Mashallah, the brother, you know, raised a big matter about, you know, having to raise your hand if you work in the industry, make it known. There's a, you know, massive sort of, you know, a line between being humble and also, you know, not sharing knowledge. You know, so it's important that, you know, you do share the fact that you do work in the industry, not in a boastful and showing off manner, but in a way where, you know, you're intending to help the people. So, inshallah, Allah will, you know, replace that or, you know, give you khair out of that. Mashallah for you. My name is Khalid, and I've been in tech for many years now. Being passionate is being enthusiastic as well. It's just something that, you know, that it's always been there for like just as a hobby. I looked at it like I never really looked at it as a career once. I looked at it like it was something I just want to take part of, you know. And alhamdulillah, you know, because my uncle he's been in tech for many years, and you know, he's the one that advised me. He said to me, Khalid, the way forward for you to like study, go in tech. Alhamdulillah, you know, like that right here, and yeah, so I've studied university for like 1 year, doing biomed, and I realized it wasn't the way forward for me. Then I left it during COVID times, and yeah, just went into, you know, touching every aspect in tech. So I went from, you know, learning networking, you know, CCNA, getting certification, and going to, you know, Palo Alto, cybersecurity. Then going to AWS, you know, I've touched upon almost like all bases, especially, you know, learning programming, and then I realized, you know, like where's the best place for me to get into, and the best place for me to get into was, you know, cloud engineering, AWS, because, you know, AWS is like market leader right now, it's the way forward, and alhamdulillah, you know, going to my first role as a cloud engineer, and, you know, there was many projects that was going around, you know, for this company I work for as a consultancy, and specifically the project they put me onto was a DevOps engineer, which I never heard of, and it was just like a big experience for me. You know, it was all fun, you know, because DevOps is more like a dynamic type of, you know, dynamic type of thing where it's always changing, and there's no one that's an expert in it. There's one guy telling me that he's been part of DevOps before DevOps even a thing, and he's adding me to meetings, you know, telling me to explain to, you know, the rest of his colleagues and everyone else what is AWS, and, you know, it's just basic stuff. And yeah, the thing about tech is that once you learn it now, I'm telling you, like, there's no one that is, you know, too far ahead. You know, when you learn it now, the technology is always improving, it's always going new, you know, and it just always improves, you know, always innovating. So you being, you know, studying now, especially with these courses behind me right now, you know, this will, you know, boost your confidence, it will help you get a better job, help you get paid, you know. My job right now is 100% remote, so yeah, I recommend everyone here to get tech. Yeah, everyone here, you know, man, Abdullah is right here himself, you know, my uncle learned from, you know, the very best, so me learning from my uncle, I'd like to thank my dad as well, my mom, alhamdulillah, you know, they're the ones that were pushing me to, you know, studying and getting into tech, you know, and yeah, well, like, there was a lot of, you know, my uncle's team as well, they're like, they inspired me as well, so there's a lot of people that's been, you know, an aspect, so alhamdulillah, you know, I like to, you know, make sure all of you lot study hard, you know, try, you know, too late, and yeah, that's it, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. aad iyo aad faraxsanahay caawaada oo qiireysanahay gabdhaha quruxda badan oo aan gabar maanta matalaay laashiya Ridwaan oo iyadana gabay kusoo xiri doonto oo ducee waxaa leeyahay farxadeeda ma la qiyaasi karo hooyo ayaa waxaan samaysay wax walba waxaa ay hooyo markuu cunug yidhahay walaahi elaa dhaqatay hooyadii way dhimatay alla naxariisto Cabdullaahi ma u soo istaagin inaan ammaano waxaa u soo istaagay waxqabadka uu qabtay runtii qofka bini'aadamka inta nolosha in la sheega fiican markaan dhimano ani xataa wax ma ii tiris amaanta markaan dhinto laakiin hadda aad amaasantahay sports xiriiryaha weyn madaxiisa ku helay marka waxaan leeyahay jisaakumullah walaahi runtii dhinaca aniga dhalinyarada qof walbaa khaldamo ilaahay bisaa qalad gelin wax yar oo dhib oo dhaco marka second chance aan siiyo meelaan ka bilaabana aqoon isagaa u keena runtiina aada u caawiyaa way wada shaqeeyeen caawana hulka ayaa xiriiriya hooyooyin badan ayaan ugu soo tagnay xafiiska oo ilmahooda la socdo
oo rabaan inay dib ayagana macalinka ula kulmaan macalinkana waxaan ku codsan doonaa hooyo iyo wiilasheeda inuu marbana u sameeyo su-aalo weydiin doonaa caawa ardayda aadaan u faraxsanahay ilmo yaryaroo halkaan waxaa fadhiya aniga aan dhalay oo waalid aan u ahay iyo kulligiin aan dhalay waxaan aada ugu sii faraxsanahay gabdhaha stageka caawa fadhiya oo macalinka waxaa arki jiray waxoogaa vices oo ahaa gabdhaha wiilasha u badnaan jira laakiin daroolkan waa mar labaad iyo gabdhaha habeenkaas ayaanan jeclaan doonaa insha allah runtii waxa uu qabtayna waxay ahayd educationkan oo mar walba uu ku daalay wax badanna kasoo baxay ciyaalkana aragteen caawa horteena fadhiyaan ani barnaamijkan waxaa jecel caawa life in laga dhigo social media si ay walaalo badan gurigu joogaan ama ilmihii ama aynan qalbiga ka jaban yihin inay u imaadaan ay arkaan runtii makusoo koobi kara wanaagiisa iyo maxaa dhahay sheekh amaantiisa ilaahay jecsanada laagsi tiimka la shaqeeyo o dhan gadaasheeda dadka fadhiya quruxda badan allaala muu sheegi karin waxaan waa kulligooda isku duuban siday walaalkeen sheegeen in ilmaha loo sameeyo whatsapp group lagu dhiirigeliyo dadkii hore u shaqeeyey waa aragtay ani hadda maanta shaqadan ka shaqeeyo qof hadda itimaad waa qaada rashinka u tilmaamay qof aan waxba aqoon markuu macalinkii imaado wax barbaxoro wax sii dhiirigeliyo la sii shaqeeyo inay idinkana sas u samaysaan arrintaana ay noqoto macalinka hanaga dhaafo bilaha dhaadheer bil kastaa qabta barnaamijka maadaama xiso weyn walaa loo qabaan oo xanuunsan keliina soo cunaa soo orday farxad leynaan dadkaana maanta soo istaaga aadaan u maasantaa macalin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسن قلت مرة كوباد أنا جا مقعد رضوان محمد ودن كان عندنا مدرب أنا جا عاو حي كانت أنا جا هردو بيوتري سو مشي إن عاو إذا لقى السوي ما يسو وتيسي حربي مرة قرأ ينسو ثليه بكاري أوه يو الحاجات صوتها ما مركا كمان جارو مركا سوى يا بابا ودي بحير ولا يقول هو يكاريها يو صوتنا جرانيسا فرحة بالعرس مالك وحنا قبضتي وحوا خلطني وحوا صيدنا لكن عروض وحبرتي ضميرة وحبرتي ضو وحبرتي وابوكا فضلا برنامج الجاهدو وحن صمية أقوياء كيجي سعى وحبيبي دولار الحمد لله برنامج كان لما قعبحي أقوياء كيجي وحن كفكري إن يددك قوم سنة إسحار qof walba wuxuu aqoon ku leeyahay qofka geela raaca ma aragtay geel jira la yiraahdaa laakiin ceeb maaha geelu garanaya sida loo raaco sida loo dhaqo sida loo maaraso maaha aqoontiisu waa geela soo geel jiraysa aqoon-yahanso soo qof kasta wuxuu garanayaa cabdullaahi waxaa weeye aqoonta computerka soo maaha waa aqoon-yahanka computerka soo maaha okay aniga waxaan ahay aqoon-yahanka qoyska aabahan celiyaa soo lagu baxsan waxaan doonayaa inaan arko waalid la socda waxaan doonayaa inaan arko aabba iyo carruur la socda waxaan doonayaa inaan arko qoys qurux badan way igu yaraatay oo ciidda markaya ciidka marka cajirad baan duubtaa iyagu imooga dadku meeriya kuma sii daayo maalinka ciidka cajirada waan duubaa laakiin dib aan u galataa nolol sabab helo aabba kale aabbaha ma eedani laakiin anaa xoogga saaray qoysku inuu isla joogo in la isgarab istaago qof kasta qaybtuu hayo maanta hadda niyadaas ay dhisantay ima garanaysaan idinkuna ma garanaysaan ma garan laakiin dad Soomaali wax bartay waxay tahay farxad weyn culays badan bay laga dhacay fadlan aynu raadino dadkeena qortale aqoonyahanka aynu sugu nimaadno daraar baa sahal hormuud erayadu waa weyn yihiin daraar baa sahal hormuud horseed iyo ciidan wacan horumar ku raadiyaa geedkii hamashoobay baa miricda laga hoos galaa guuraha dayacbaa habeen hadamaha kaaduwaa heelkii alla kuu baxshaa ileen aadmiga hagee haddaanu ilaah koodin miyaa hilinkiiya wadada hawlyaro lagu soo hela cilmiga jahliga hubka lagu diliya hooy aan ka samaysanay horwadaay aqoonteena horwadaay ilaahay waxaan ka baryay in aqoonteenu noqoto mid baadho iyo khayr kusoo maaragtay wada gaadha waxay naga dhiman waa aqoonta dalku ina soo dhaweeyey wax badan baynu haysanawaada qurux badan waa lagu diirsanaya qof aqoon imaatinkiisa maasha allah walaal waxaan leenahay ilaahay waxaan kaaga baryinaa aqoontaad aada wadid mid laga faa'iido oo lagu caawiyo carruurteena horumar ku gaadha allah inaga dhigo shaqo kastoo la hayo qof kastaa meel buu taagan yahay wax kastoo uu qofku jecel yahay oo khayra ilaahay haradiisa ha dhigo degdeg bay u yartahay insha allahu intaas جزاك الله خير كنت قف كستو كسو استاغو هو دوا ديما ku jirto laga qaadan kara dabcan in qofka maartay wax ma la bari karo hadii hooyo rabto adu aaba rabto adeer rabo ma bari in adiga rabto muhiim ah
يا قال مركو حالك أساء قف حرامين وبرتاء درع ميل وكذا قفكي مركا لكن كنت يستقف كل إنه بح برو طبعا وقت بدري وقال لي سأوقع إنه ملك مركا دوال عنق يكبر مركا سوي فيديو هذا هذه بعرف استجابه هذا عنق الربو وسوي فيديو لكن هو ما بينه طبعا وقت بدري بيشتغل ضمنوا باش هذا جعل الجو ورا بدنا جو قيمة عبد الحيس وكجرا معنا حمزة وحيش يحيي في كلاس واحد في كلاس واحد لا يجوا أبوه يجوا عبد الحيس يجوا ما شاء الله وحنا كان أيتي يكون في عيا وحاكمين برك جوريا وجبر شقة كبلاده وراك كده وكبلاده وحركة سا ما شاء الله كي جوري تشتغل بلا سايبر سكيورتي إكسبرت رضي مركولاش هذا كم بعده شقين وراك في عام ما تاني لا يكتب جلسة ما شاء الله حدين وقتين شاء الله runtii waxaan rajayn doonaa inaan habeenad badan oo saan oo kaleeta ka sii fiican u kulmi doono waa ku xumaa walaal badan oo qaali in hadaan jeclaa ama macnaha weliba waqtiga noo saamici laaya insha allahu tacala walka idriis gadaal u fadhiya gadaal u kiimaan insha allahu tacala marka waxaan rajayn doonaa kulan ka badan maaragta inaan kulmi doono insha allahu tacala axmed imaaraati xagga qiimaha wuxuu dhahaa briiska aan riban marka insha allah joojin doona insha allah jazaakum allah khayr wixii walaalaha macnaa inta aragteen cumar ku sheeg gacmaha taagan qofkas qof kor waa u taag la sheegaysa insha allah tacala maaragta halka faa'iidaysan marka ma santi jazaakum allah khayr sanadkan iyo sanadkiisa waxaan rajayn doonaa annagu intaan ka caafimaad qabna kulmi doono insha allah